المطهر وحمزة الخير وصنوي جعفر من النبي الطاهر المطهر وحمزة الخير والصنوي جعفر له جناح في الجنان أخضر وفاطم عرسي وفيها مفخر. السلام عليكم ورحمة الله. magaciisu waa maxamed ibnu muusa alkhawaarizmi waa caalimka weyn ee soo saaray xisaabta aljabraha kana qorayna buugaag fara badan. buugaagtaasoo ka qoray waxaa ka mid ah buugga alkhawaarizmi father of algebra and trigonometry, alkhawaarizmi the inventor of algebra, alkhawaarizm the beginnings of algebra, iyo buugaag fara kaloo badan. buugaagtiisa waxaa kaloo ka mid ah buugga cajiibka ah ee loo yaqaano alkitaab almukhtasar fi xisaab aljabra walmuqaabala. buuggaas cajiibka ah wuxuu ka hadlayaa keliya xisaabta aljabraha. khawaarizmi waa qofkii ugu horeeyey ee xisaabta aljabraha si cilmi ah u sameeyey. alkhawaarizm wuxuu culumta kusoo kordhiyay cilmigii loo yaqaano algorithm oo ka mid ah culumta kombiyuutarka. inuu kusoo gaaro muuqaalkan aad daawanayso waxaa sabab u ah YouTube algorithm, raadraaca YouTube-ka. magacaas algorithm wuxuu ka yimid magaca dambe ee caalimka Uzbekistaaniga ah ee Maxamed ibnu Muusa al-Khawaarizmi ama Abu Cabdullaahi Maxamed ibnu Muusa al-Khawaarizmi. magaciisa ugu dambeeya ah al-Khawaarizmi ayaa dadyowga galbeedka ugu dhawaaqaan algorithm maanta waa wax ay ku shaqeeyaan shirkadaha waaweyn ee wax borograamiya iyo wax waliba oo tiknoolajiyada casriga la xiriiro. in muuqaal la soo geliyo YouTube-ka oo sii faafo waxaa keenayo in la raaco tilaabooyinka YouTube algorithm-ka. haddii xisaabtan algorithm-ka jiri lahayn, tiknoolajiyada maanta dunida ka jirta ma noqday mid hana qaada. haddii xisaabtaasi jiri lahaynna ilbaxnimada iyo tiknoolajiyada maanta ma jiri lahayn. guud ahaaneed magaciisa saddexan waa maxamed ibnu muusa alkhawaarizmi ama abu cabdullaahi maxamed ibnu muusa alkhawaarizmi. magaca alkhawaarizmi waa deegaanka uu kasoo jeedo, waxayna reer galbeedka ugu dhawaaqaan algorithm. alkhawaarizmi wuxuu caan ku ahaa culumta xisaabaadka iyo tiknoolajiyada, waxaan usii dheer cilmiga xidigiska ama cilmiga falaga. khawaarizm wuxuu ku noolaan jiray bigdaad, wuxuuna ka shaqayn jiray daarul xikma ama aqalka xikmadda ee bigdaad, waxaana laga dhigay qofkii mas-uulka ahaa kutubtii daalay maktabadda ee ku dhoweyd nus milyan. alkhawaarizmi wuxuu ka faa'iidaystay kutubtii faraha badneed ee taalay maktabadda daarul xikma, wuxuuna darsay cilmiga xisaabta, juqraafiga, taariikhda iyo falaga iyo in kaloo badan. alkhawaarizmi wuxuu tirada kusoo daray alkhawaarizmi wuxuu xisaabta kusoo kordhiyay tirada ewer sufra zero ee uu fikirkiisa ku keenay hindiya, dhaqan geliyana asaga alkhawaarizmi ah. الخير والصنوي جعفر له جناح في الجنان أخضر وفاطم عرسي وفيها مفخر.